kusoo dhawow koorsadeenii la magac baxday Introduction to Computer and Internet Use. Koorsadan sida aad magaceedaba ka arkaysid waxaynu ku baran doonaa hordhaca inaynu fahanno computerku waxa uu yahay iyo sidoo kale sida internetka loo isticmaalo oo waxyaabaha asaasiga ah ee noloshaada aad u baahan tahay aad awood ugu yeelatid inaad maaragtay internetka waxyaabaha la xiriiro dhan aad isticmaali karaysid. haddaba haddii eeba idmo koorsadan waxyaabaha aan ku arki doono waxaa ka mid ah in cutubka koowaad ama waxaynu koorsadan u qaadaa dhigi doonaa 7 cutub oo kala duwan ee koorsadan ka koobnaan doontaa eebaydakii. cutubka koowaad waxaynu ku arki doonaa hordhaca introduction, halka cutubka labaad aynu ku arki doono sida aad koorsadan ama getting most out of this course, sida ugu wanaagsan ee aad koorsadan uga faa'iidaysan kartid. cutubka saddexaad waxaan ku arki doonaa components qaybaha kala duwan ee computerku uu ka kooban yahay ama runtii computerku basically uu ku shaqeeyo. waxaan kaloo arki doonaa software typeska oo cutub gaar ah softwareda kala duwan ee asaasiga ah ee aynu dayliga u baahanahay si computerkeenu inuu u shaqeeyo ama waxyaabo asaasi ah aynu ugu qabsano. waxaan kaloo sidoo kale arki doonaa measurement, classification and data oo ah xogta iyo waxyaabaha la xiriira. waxaan kaloo iyo sidoo kale halka waxaa soo gelaya viruska iyo sida la isaga ilaaliyo iyo waxyaabaha la xiriiro dhan. waxaynu markaa arki doonaa sectionka lixaad oo la xiriira internet use, kaasoo ka dhigan inaynu fahanno sida internetka loo isticmaalo oo maaragtay shaqooyinkaadii asaasiga aad ugu qabsanayo iyo gabagabadii iyo guntii koorsada. ugu dambeyn koorsadana ardaygu marka uu dhigto waxaa awood u yeelan doonaa inuu computerkiisa fahmo siduu u shaqeeyo, waxyaabaha uu ka kooban yahay, barto waxyaabaha asaasiga ee softwareda kala duwan ee lagu shaqeeyo, uu noqdo qof aqoon u leh internetka, waxyaabaha kala duwan ee internetka la xiriira sida maaragtay aad uga faa'iidaysan kartid. intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. waxaan ku faraxsanahay inaad koorsadan isu diiwaangelinaysid. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.